Turkiga ayaa markan waxa uu ciyaarayaa door isku keenid dhinacyada Soomaalida waxaana la isku dayayaa in dawladda mucaaradka la soo horfariisiyo kuwaasi oo hadda ay dhex taalo xurguf iyo sidoo kale arrimo la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafyo xooggan oo ka taagan gudaha dalka. Xaaladahaasi oo dhan waxay ahaayeen kuwo sal u ah markaasi wada hadallo kulamo kala duwan oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday. laakiin markan waxaa muuqata in door saliim ay qaadanayso dawladda Turkiga oo siyaasiyiinta intooda badan markaasi xiriir dhow ay la leeyihiin. haddii ay ahaan lahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii ka horeeyay iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii markaasi toddobaad ee Soomaaliya. dhammaantood waxaa loo arkaa inay yihiin dawlado si gaar ah markaasi ugu dhow dawladda Turkiga. Turkiguna markan waxa uu ciyaarayaa door dhexdhexaadin ah dhinacyadana waxa uu isku dayayaa inuu isku keeno. soo gaaritaankii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wafdiga ka socday dawladda Turkigu wuxuu ahaa mid ay si gaar ah markaasi saameyntiisa u watay, waxaana dhinacyadu uu isugu soo dhaweynayay dadaallo iyo sidoo kale qorshayaal ballaaran oo la xiriira sidii loo abuuri lahaa jawi nabadeed iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ka taagan gudaha dalka. arrimahaasi oo dhan Turkigu haatan waxa uu ku mataalayaa sidii loo keeni lahaa waxyaabo badan oo la xiriira dardargelinta wada hadallada iyo sidoo kale in la gaaro heshiis doorasho iyo hanaan la isku raacsan yahay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyayaasha mucaaradka ee ku midoobay golaha mustaqbalka Soomaaliya oo lagu kabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaantood waxa mid walba uu arkaa dawladda Turkigu inay tahay saaxiib gaar ah oo Xasan Sheekh Maxamuud si gaar ah ugu xaglinaysa. laakiin Turkigu hadda waxa uu cadeeyay inaysan jirin siyaasi gaar ah oo si gaar ah ugu dhow yahay, laakiin uu doonayo in mid walba ay danihiisa uu ka dhaxarko. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shir jaraa'id dhawaan qabtay waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo doorka dawladda Turkigu waxa uu muuqdaa hadda inuu qaadanayo door muhiim ah marka laga eego sida ay ku dadaalayso Turkiga oo gadaal ay ka taagan yihiin Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Qatar. dhammaantood waxay isku dayayaan in dhinacyada Soomaalida waji ka waji la isugu keeno si loo ambaqaado dadaalada iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee la xiriira dardargelinta howlahaasi. waxaana dhammaantood haatan u muuqdaan in ay qaadi karaan tallaabooyin ballaaran oo xaaladaasi la xiriirta. dawladda Turkigu kulankii koowaad waxay ku guuleysatay in dhinacyada la is horkeeno. waxay markaasi kulamo gaargaar ah oo kala dabqaadida ay samaysay kadib ugu dambeyn lagu guuleystay in dhinacyadu ay noqdaan kuwo is soo hor fariista. waxaana guddiyo farsamo oo dhammaantood markaasi lagu dhawaaqi doono ay noqon doonaan kuwa si aan baqaadi doona wada hadallada. laakiin kulankii ugu horeeyay wuxuu ahaa mid 3 qof ay markaasi dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka ay kala matalayeen, waxaana raggaasi markaasi ay ahaayeen kuwa muhiimad gaar ah muujinayay. madaxweynaha hore markaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhawaan mid kasta oo kamid ah waxa uu ka dhawaajiyay muhiimadda loogu baahan yahay in la helo xilligan nidaam doorasho oo heshiis lagu yahay. haddii dadaaladaasi la bixiyana ay noqon doonaan mid wax badan looga heshiiyo. laakiin dawladda Turkiga oo xilligan Soomaaliya ka sameynaysa mashaariic waaweyn waxay u aragtaa dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha ay bixinayso kuwa muhiim ah xilligan. qarashaad markaasi ku fadhiya balaayiin dollar ayaa Turkiga ka yaala biyaha Soomaaliya. waxay sameynaysaa mashaariic waaweyn oo dhanka horumarka ah oo qayb ka yahay qodista iyo sidoo kale soo saarista shidaalka. waxaana sidoo kale jirta in dawladda Turkigu haatan ay u sahan tagayso dhulka bariga si ay uga baarto macdanta Soomaaliya. waxaana qorshayaashaasi oo dhan ay noqonayaan kuwa ugu muhiimsan ee dadaalada xilligan muuqda. laakiin dawladda Turkigu mar walbaahi waxa la dhihi jiray waxa ay tahay saaxiibka kaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu leeyahay, laakiin taasi waxay noqotay mid been ah marka laga ambaqaado Turkigu sida uu u danaynayo in Soomaaliya mar kale ay cagaheeda dib ugu istaagi karto. Turkiga waa dawlad markaasi xiriir la lahayd Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011 markaasi oo Soomaaliya ay ku soo jeediyeen indhaha caalamka xilligaas oo ila daala dhacisay abaaro, colaado iyo sidoo kale dhibaatooyin kale. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilligaasi ahaa ninkii soo samata bixiyay Soomaaliya waxay hadda taagan tahay marxalado waxa uu ku faanayaa in dalkan wax u soo qabtay haddana sidoo kale uusan doonaynin in dhibaato ka dhacdo. waxyaabihii dhawaan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay ahaayeen kuwo markaasi hoga tusaaleyn badan iyo sidoo kale waxyaabo badan ay ka muuqdeen, laakiin dhan walba oo kamid ah dhinacyada waxa uu muujinayay dadaal dheeraad ah iyo sidoo kale waxyaabo gaara. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hogaamiye kale oo loo arko inuu asaguna saaxiib dhow u leeyahay dawladda markaasi Turkiga. laakiin si kasta ay ahaato Farmaajo taageeradiisa iyo sidoo kale waxyaabaha uu Turkiga ka rajaynayo waa mid kamid ah waxyaabaha ugu ballaaran. Xasan Sheekh Maxamuud dhankiisa waxaa loo arkaa in Turkigu uu yahay saaxiib gaara, laakiin dhammaantood Turkigu hadda waxa uu quudareynayaa sidii uu mar kale ku raadi lahaa saaxiib gaara iyo sidoo kale qof markaasi kamid ah 3daas qof inuu mar kale Soomaaliya ku soo baxo si uu u gaaro danihiisa uu ka leeyahay Soomaaliya.